abwaan yuusuf shaacir oo kamid ah abwaanada Soomaaliland oo maanta warbaahinta magaalada Hargeysa kula hadlay ayaa waxa xukuumadda Soomaaliland uu ku eedeeyay in aanay waxba ka qaban arrimo muddooyinkii u dambeeyay Soomaaliland ka jiray isla markaasina dhaqanka islaamka diinta lidku ahaa abwaan yuusuf shaacir oo kamid ah abwaanada Soomaaliland isla markaasina maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrimo uu sheegay abwaanku in ay lid ku ahaayeen dhaqanka suuban iyo sidoo kale diinta islaamka waxana uu abwaanku u eedeymo kala duwan u jeediyay isla markaasina arrimahaasi uu ku dhaliilay wax ka qabasho la'aantooda qaar ka mid ah wasaaradaha Soomaaliland oo ay ka mid tahay wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha waxana sidoo kale meelaha uu abwaanku aad ka u dhaliilay ka mid ahayd xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa taasi oo sheegay in muddooyinkii u dambeeyay iyaduna faafinaysay arrimo lid ku ah diinta islaamka iyo sidoo kale dhaqanka suuban abwaan shaacir oo arrimahaasi ka hadlayna waxaa ka mid ah hadaladiisii abeer ninka raadin jiray adeentida waa yaqaan markii arah loo tartamay af iyo laba daantasheen adoonba adoon wax biday kashana laga sii araday asoolka markay janteen naftii uskag raaciyeen qof iyo aashi hadleen bulshada amar baa ku dhacay ugaar diday bay noqdeen sibay u asqaysan yiin rajiya amal baan lahayn ayaan kuna hiilin waa waxay ummaduhu dumaan akhlaaqda markay lunshaan dawladda golaha guurtidu shalay waxay u yeedheen wasiirka awqaafta wiigga horena waxay u yeedheen wasiirkii warfaafinta waxyaabahan aan ka hadlaya mar lamay soo qaadin may weydiin xogagaal baanu ahay raggii goobjooggaaba iga warramay marnaba may weydiin waxyaabo kale la isweydiinayay wasaaradda awqaaftu intay u jirto waa aragteen xarunta dhaqanka intay isu jiraan waa aragteen berigii hore aanu ka hadallayna iyagaaba difaac nala galay wasaaradda awqaaftu ilaa wasiirkeeda aad moodaysa inuu difaacayo wixii aanu ka hadlaynay ayaan darooyinka jira ayay ka mid tahay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay xumaanta haddii la iska qaban waayo ama xumaan in yari samaysay inaanay intaa ku koobnaanayn ee ay gaadhayso ama ay saamaynayso in ka badan suuratul anfaal aayadda 5 ilaahay muxuu ku leeyahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بايلهي لي إن كستو شهادك لقى سو ورنمي إياه هدي إسلامكم فضيت صدو أيها هدنا علماء مركي فصيليان وحيليهين كفيتش نادا أما كبغض أما كدكتو نادا فدمو إيا مصيبو أن كوكوب نانين انتي سميسي وهذين وحا داوانو maxaa u malaynaysaa galab walba roob kolkaa markuu ka soo runtii waxaan isaa armuu noqonkii laydinku qasifi lahaa dagaaladan sokeeya aynu ka qaylinayno waxaasoo dhammi haddaynu fitanka iska qaban weyna iyo xumaanta qoomam hore ilaahay inoo sheegay dhirbaaxooyinkii ku dhacay markii culimmadoodii iyo waxgaradkoodii ku daawaday kuwii xumaanta samaynayeen ayaa laynooga warramay dhirbaaxooyinkii ku dhacay marka Botswana waxaa soo casumay xarunta dhaqanka filim buu soo bandhigay dad ilaa 300 oo qof gaadhayaa ka soo qayb galay waxa la waraystay gudoomiyaha xarunta dhaqanka su'aal baa lagu weydiiyay maxaa ninkan u keenteenoo wuxuu yidhi ninkan annagu war kama aanaan hayn wuxuu ka shaqeeyo laakiin waxaanu ku soo casuunay buuggu qoray iyo filimkiisa haddana mar kaluu gudoomiyaha hadalkala sheediyo wuxuu yidhi muraadba kama lihiin annagu shakhsiyaddiisa annagu buuggiisuun baanu qiimaynayn waa hadal aad loogu qoslo ninkayga suuqa joogaa ninkaan ogaaday ma waxa layga dhaadhicin karaa ninka soo casumay warba uma hayn waa arrin qosol leh twitterkiisi baa la galay oo laga soo saaray anigu waan akhriyay twitterkiisa wuxuu ku qoray oo uu leeyahay markaanu ku guulaysanay dalkayaga inaanu wadamada kale dariskayaga aana gaadhno oo booqanno ayay nala noqotay xarunta dhaqanka ma aha markii koobaad ay qof noocaasa soo casunto waxaa ka horreysay gabadh iyana ingiriiska u dhalatay oo u dooda iyana in dumarku isfara xumeeyaan ayay keentay markaana wasaaradda awqaafta la isla tegay culimadii magaalada iyo iyaga wuxuu codsaday inaanu war u haynin mar dambana aanay dhici doonin culimadii goobjooggahayd bay ka warrantay
xaruntaas oo in badan laga hadlay oo shacabku aad uga qayliyay runtii iyo culimaduba dawladdu ma raba wax wara kamay soo saarin. Cabdiraxmaan Camar, telefishinka caalamiga ee Som News, magaalada Hargeysa.